dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenkan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxa uu si rasmi ah xariga u dhigay kadib markii ay ka yimaadeen xariga jarista kawaanka gowraca hilibka saribad cusub ay guud ahaanba si rasmi ah u dhisayso hay'adda FAO ee cuntada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay taasoo ay ku baxayso lacag dhan $120,000 Mareykanka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu sifeeyay qaabka loo dhisayo sariibadan madaxweyne ku-xigeen waxa noo farxad ah inaad maanta halkan dhagax dhigto sariibad cusub oo loo samaynayo xaafad kamid qayb kamid ah magaalada Burco oo la yiraahdo Faarax Omar sariibadan magaceedu waxa la yiraahdaa gahaal la yiraahdaa sariibadan oo doono sariibad casri ah sariibad casri ah in laga sameeyo iyadana sidaas oo kale lacagta lagu bixinayo waxa dawladda Soomaaliland ugu deeqday dawladda Ingiriiska ugu deeqday mashruuca DFID la yiraahdo waxaana fulinaya FAO intaasi kadib madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisu waxay u ambabaxeen deegaanka Aroori oo ilaa 12 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Burco madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii uu halkaasi gaaray waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay wajiga labaad ee mashruucaasi oo loogu talagalay in guud ahaanba la dhiso kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay ku maalgelisay lacag dhan $300,000 Mareykanka halka dalka Ingiriiskuna uu ku kabay $3 milyan Mareykanka inoo dhagax dhigay wajigii labaad ee xiraguusha Aroori oo aadkii oo 10,000 oo mitir ah oo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland miisaaniyadeeda ugu deeqday 10,000 ee mitir markay inoo dhamaadaan waxa hadhay 50,000 oo mitir taasoo ay dawladdu fulinayso aan hay'adi fulinayn hase yeeshee lacagteeda ay ugu deeqday Ingiriiska iyo Danishku waxaad arkaysaa markaynu wax qabsanay halkay hay'adaha ama United Nationska FAO iyo NGO loo dhiibi lahaa lacagta iyo dhaqaalaha loo dhiibi maayo NGO marimayse toos dawladda dhexe iyo maraysa iyadoo ay hawsheeda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheyntu ka madax yihiin xoolahaas la socoteen waa laf dhabarkeena dhaqaalaha Soomaaliland in la daryeelana waa waajib in oo saaran weyn xukuumad ahaan gaar noo saaran waxaan ku faraxsanahay maanta inaan dhagax dhigno ama aan soo furno qaybtii dawladdu ay maalgelisay ee ahayd in dhismayaasha la dayactiro iyo inta 10 kiiloomitir oo horeeya imka siligan aan garab joogno ama deerkii lagu wareejinayay meesha lagu ilaalinayo maanta xoolaha inaan maanta dhagax dhigno aad iyo runtii ugu faraxsanahay waana himilada iyada ka dawlad ahaan in adeegyada la xoojiyo waana aad baan ugu mahadsan wasiirka iyo hay'adaha ka howlgalana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waana markii koowaad saad la socotaan in mashaariicaha waaweyn ee sida dhismayaasha xafiisyada dawladda ama maanta la gelinayo xoolaha la gelinayo ama caafimaadka la gelinayo in budgetka dawladda ay ka mid noqoto intaasi kadib waxa uu madaxweyne ku-xigeenku si rasmi ah xariga uga jaray mashruucan iminka uu dhagax dhigay midkii ka horeeyay oo guud ahaanba lagu soo sugayay xuduudkii uu lahaa seerahaasi mudane madaxweyne ku-xigeen halkan waa mashruuc Aroori waa seerihii xoolaha dhammaan 8 guri oo dhan imika muddo 3 bilood ka hor ayaan nagii wasiirka xanaanada xooluhu dhagax dhignay iyo maayirka dhismaheedii alxamdulillaah rabbil caalamiin wadanka wada dhismay waxaan jecelahay maanta inaad xariga nooga jarto dhismahan oo dhameystirmay mudane madaxweyne ku-xigeen soo dhaw raxmaan raxiim mudane madaxweyne ku-xigeen mashruucan waxa weeyaan saarihii ama xiraguulada waxa la holding grounds la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliland lahayd labada xiraguulay ugu weyn ee Soomaaliland leedahay waxa weeyaan Aroori iyo qool caday weeye halkan markaa waxa weeyaan waxa bixiyay maalgelinta halkan dawladda Soomaaliland yaa maalgelisay waxaana fulisay wasaaradda xanaanada xoolaha waxa weeyaan waa xafiisyadii shaybaadhadii meelihii loo seexanayay ofisyadii oo ah 8 guri ah 8 guri waa la dhameystiray mashaariicdan maanta madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu sida rasmiga ah uga hirgeliyay magaalada Burco qaarkoodna uu dhagax dhigay qaarkoodna uu xariga ka jaray ayaa waxay noqonayaan mashaariicdii ugu qiimaha badnayd ee guud ahaanba xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo garwadeenka ka yahay ay ka hirgeliso gobolka Togdheer Cabdi Sattaar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.